wuxuu ku dhashay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Diseembar sanadkii 1908. Wuxuu ahaa ganacsade iyo xubin ka mid ah ururkii gobonimo-doonka SYL. Dadka yaqaanay waxay ku tilmaamaan inuu ahaa nin wadani ah oo jecel dadka iyo dalka, sidoo kalena aanan weligiis lagu tuhmin kala fogeynta dadka iyo waxa loogu yeero musuqmaasuqa. Shakhsiga aan ka hadlayo waa madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka Soomaaliya, Mudane Aadan Cabdulle Cusmaan Daar Aadan Cadde. Haddaba ku soo dhowaada baalka taariikheed ee madaxweyne Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde. Aadan Cabdulle Cusmaan Daar oo loo yaqaanay Aadan Cadde wuxuu ku dhashay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan Diseembar sanadkii 1908. Waxa uu waxbarashadiisa sare ku qaatay magaalada Muqdisho. Sanadkii 1941 ayuuna dalka dibaddiisa u aaday si uu waxbarashadiisa u sii wato. Wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay Jamhuuriyadda Soomaaliya. Wuxuu xilka hayay 1 Luulyo 1960 ilaa 10 Juun 1967, wuxuuna noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee Afrikaan ah oo si dimuqraadiyad iyo wadaninimo ku jirta uga daga xilka madaxweynenimada. 1944 wuxuu ku biiray ururkii dhalinyarada ee gobonimo-doonka Soomaaliyeed ee SYL, isagoo ka noqday nambarka 30aad, waxaana isku mar la diiwaan geliyey isaga iyo Cabdulaahi Ciise Maxamuud oo ahaa ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay ee Soomaaliya. Wuxuu ururka ka noqday xubin firfircoon isagoo ka qabtay xilal kala duwan oo sarsare. Bishii May 1958, Aadan Cabdulle Cusmaan waxaa loo doortay xilka ugu sarreeya ee xisbiga Somali Youth League. Sidoo kale wuxuu noqday guddoomiyaha golihii sharci dejinta ee la oran jiray Somali Legislative Assembly. Wuxuu xilalkaas hayay ilaa 1 Luulyo 1960 oo ahayd maalintii xorriyaddii Soomaaliya. Maalintaas oo Soomaaliya ay xorriyadda qaadatay, isla markaana ay midoobeen gobolladii waqooyi iyo kuwii koonfureed. 1960 markay xornimada qaadatay Jamhuuriyadda Soomaaliya ayuu noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka Soomaaliya oo si dimuqraadiyadi ku jirta loo doortay. Waxaana loo doortay inuu dalka xukumo muddo 1 sano ah, balse waxaa mar kale dib loo doortay inuu dalka hogaamiyo muddo 6 sano ah. Intii uu xilka hayay wuxuu aad ugu dadaalay sidii ay xorriyad u heli lahaayeen gobollada kale ee Soomaaliyeed ee weli ku jiray gacanta gumaystaha, samaynta shuruucda dalka, sare u qaadidda waxbarashada, dhismaha ciidamada iyo arrimo kale oo muhiim ah. Waxa ay dadka yaqaanay ku tilmaami jireen inuu ahaa nin wadani ah oo markaasi dadka iyo dalkaba dantooda aad u danayn jiray. Waxa uu ahaa nin aysan weligii soo gelin raad ama tuhun la xiriira wax isdabamarin ama musuqmaasuq. Waxaana la sheegaa in muddadii uu xilka hayay uu mushaarkiisa inta uu kaydiyey dib ugu soo celiyo dowladda, kaasoo dib loogu dhisay xarun ay dowladdu ku leedahay magaalada Afgooye. Waxa uu aaminsanaa Eebba u naxariistay shantii Soomaaliyeed ee gumaystuhu kala xadeeyey inay isku xiran noqdaan, waxaana uu diidanaa xayndaabka xuduudeed ee raggii la iska xoreeyay Soomaali galbeed ku xireen. Dowladdii uu hogaaminayay Aadan Cabdulle Cusmaan Daar waxaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hogaaminayay Daa'uud Cabdulle Xirsi oo ahaa taliyihii ugu horreeyay ee ciidanka militariga Soomaaliya. Intii uu xilka hayay Aadan Cadde, dalka wuxuu la kulmay caqabado waaweyn oo dhinaca amniga ah. Mid ka mid ah dhacdooyinka ugu waaweyn waxay ahayd dagaalkii Itoobiya iyo Soomaaliya ee sanadkii 1964, markaasoo Itoobiya ay weerar ku soo qaaday Soomaaliya. Weerarkaasi wuxuu ka dhacay xuduud beenaadda labada dal, gaar ahaan deegaanada sida Togwa Jaale iyo goobo kale oo muhiim ah. Dagaalkaasi wuxuu ahaa mid muujiyey xiisadda ka jirtay xuduudaha labada dal xilligaas, wuxuuna qayb ka noqday halgankii difaaca qarannimada Soomaaliya. Damaca Itoobiya ayaa ahaa in ay qabsato Berbera iyo qaybo ka mid ah Soomaaliya, balse geesinimo iyo iska caabin ay sameeyeen ciidanka xoogga dalka oo markaa curdun ahaa ayaa waxay ku guuleysteen inay iska difaacaan xabashida. Geesiyaashii dagaalka ku shahiiday waxaa ka mid ahaa geesigii caanka ahaa ee Maxamed Cabdulle Xalane. Aadan Cabdulle Cusmaan wuxuu ku dadaalay dhisidda ciidanka xoogga dalka iyo raadinta gobolladii gumaysigu haystay sida NFD oo markii hore Ingiriisku uu haystay, balse markii dambe uu raaciyay Kenya. Taasi waxay sababtay in Soomaaliya ay xiriirka u jarto Britain xilligii Aadan Cadde. Madaxweyne Aadan Cabdulle Cusmaan wuxuu xilka ka degay sanadkii 1967 kadib doorasho uu kaga guuleystay Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Aadan Cadde ayaa xilka si nabad ah ku wareejiyey isagoo noqday madaxweynihii ugu horreeyay qaaradda Afrika ee xilka si nabad ah uga dega kuna wareejiyey si nabad ah. Soomaaliya ayaana xilligaas noqotay dal dimuqraadiyadda looga daydo. Markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, Aadan Cabdulle Cusmaan kama uusan cararin dalkiisa, balse wuxuu ku noolaa deegaanka Mushaani oo ku dhow degmada Janaale. Wuxuu si weyn uga murugoon jiray xaaladda iyo dhibaatada ku habsatay dalka, isagoo ahaa haliyey hore oo u soo halgamay qarankan. Allah u naxariistay madaxweyne Aadan Cadde wuxuu ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya 8 Juun sanadkii 2007.
waxaana lagu aasay magaalada Muqdisho 11kii Juun isla sanadkaas, halkaas oo si sharaf leh loogu suguutiyey. waxaana halkaas ku eg taariikhda madaxweynihii koowaad iyo aabbihii daljacaylka Aadan Cabdulle Cusmaan Daar Aadan Cadde.